وهاجاج dhegeystayaal kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada qayb kale oo kamid ah barnaamijyadii aanu ku eegaynay taariikhda Soomaalida. barnaamijkana waxa weeyaan kii 13aad intii dhegeysanayay barnaamijkii kan ka horeeyay ee baxay axadii waxa aad dhegeystayaal ku maqasheen codad ajnabi ah oo ka hadlayay dagaalkii socday 1977 ilaa 1978 ee dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya. madaxdaasi waxa ka mid ahaa hogaamiyaha dalka Cuba ee la yiraahdo Fidel Castro iyo saraakiil isaguna ka tirsanaa dhinaca dalkii la oran jiray waagaasi midowga Soviyeeti. haddaba marka aynu u soo noqono dagaalkii dhinaca Soomaalida sarkaalkii ugu sareeyay ee dagaalka hogaaminaya waxa uu ahaa General Maxamed Cali Samatar ama sareeye guud Maxamed Cali Samatar oo isagu ah ninka Soomaaliyeed ee darajo ciidan halka ugu sareysa ka gaaray oo aan shaki ku jirin in badakiinu aad wada garanaysaan marka laga reebo intii garashadoodu ay indha dilaacsatay dhowr iyo 10 sanadood ee ugu dambeeyay. haddaba waxaan oo suurta gashay inaan waraysi la yeelno General Samatar oo haatan isagu ku nool wadanka Mareykanka oo aanu filano in dad badan oo na dhageysta ay aad u dhageysanayaan oo ay ugu dhagtaagayaan waxa uu oran doono General Samatar sababtoo ah xogogaalnimadiisa iyo doorkii muuqday ee uu kaga jiray dawladii Soomaalida ee xukunkeedii uu dumay sanadku markuu 1990 waxyaabaha aanu wax ka weydiinay waxa ka mid ahaa dagaalkii 1977 ama se dadku sida u dhigaanba lagu soo gaabiyo dagaalkii 77. saaxiibkii Cabdilaahi Xaaji oo General Samatar waraysi dheer la soo yeeshay markii uu dagaalkaasi wax ka weydiiyay General Maxamed Cali Samatar waxa uu yidhi dhacda xusuus weyn leh waxa weeye dagaalkii 77 oo annaga iyo Itoobiya na dhaxmaray. dagaalkaas mid weyn buu ahaa taariikhda way xusaysaa kutub badan bay ku qoran yihiin dugsiyaa la iska baraa al'aana dawlado badan baa dugsiyadooda dagaalka ka dhiga dagaaladaas aynu annaga iyo Itoobiya galay na dhaxmaray. dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal si fiican aynu u qorsheynay si fiican aan u maamulnay anigana shakhsi ahaan xusuus weyn leh oo taariikhdayda meel weyn ka gelayo guud ahaan Soomaaliya dhan taariikhdeeda dagaalkaas meel weyn ka gelayo maxaa yeelay Soomaali waxay ku muuqatay dadka qiimaha ay leedahay dadnimadeeda iyo kartideeda ayay ku muuqatay. maxaa u sababa waxa u sababa Itoobiya markaa waxaa loo yaqaanay libaaxi Afrika libaaxi geeska Afrika ayaa loo yaqaanay cidina isma lahayn ciidanka Itoobiya ciidan isor taagi karo ayaa Afrika ay leedahay cidna kuma fikraynin markaa laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray muddo bilooyin aanan badnayn gudaheed haddaanan loo soo gurmanna dibadda aan looga soo gurmanin oo dawlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbahaystay badan ayaan u soo gurmanna xaaladda intaa waa ka duwanaan lahayd. dagaalkaas waxba yaanan ku dheeraanin hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd jigjiga oo ciidan xoog leh Itoobiyaanka markaa uu u joogay ciidamadooda taankiga ayaa fadhin jiray sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiici ah buuraaley weeye markii difaacaas la abaabulo la qodo way la yaqaanaa sahal laguma mari karo isma ayan lahayn Itoobiyaanka karamardha ayay jiiri karaan Soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan isma ayan lahayn. dagaalka jigjiga aad buu runtii u adkaa u qallafsanaa haddaan xusuustayda dib ugu noqdo 14 casho ayuu nagu qaatay jigjiga inaan ka takhalusno. jigjiga waa dhaafnay waa la wada ogyahay harar markaan marayno ayaa ay noqotay inaan ka soo noqono oo ciidamo kale iyo awood naga badan ay soo gashay meesha lagama maarmaan ay noqotay marka inaan ka soo saaro ciidamadanadii
aan ka soo baxno markaan aragnay qowida meesha soo gashay hubka soo galay colalka soo galay hadday tahay annaga iyo etoobiya keliya kama soo baxneen mana ay suurowdeen in nalaga soo saaro markii annana aan keligayn noqonnay oo marka halkaas waxay ku tusaysaa yacni militarily waan ku adkaynay dagaalkii laakiin politically baa annala aynu weynay allaayad ama rag nala safto dowlado nala safto oo na soo barbar istaago oo nala galo dagaalkii baan weynay ayaana ay heleen waxaa daba dhegaystayaal la isweydiin karaa oo dadkana dhegaysanaya isweydiin karaan waxaa dowladdii soomaaliyeed iyo ciidamadeediiba ay u waayeen taageero shisheeya oo muhiim wakhtigaasi ahayd gaar ahaana in laga helo dowladihii waaweyn ee waxtarkooda isbeddel ku samayn lahaa dagaalkaasi janaal maxamed cali samatar oo arrintaasi iyo khasaaraha dad ee labada dhinacba soo gaadhay ka hadlayay oo uga jawaabay cabdilaahi xaajinah waxa uu yidhi sababta way iska caddahay waxaa weeye annaga markaa waxaan u muuqanayn dad weerarayo dad kale dalkiisa marka cidina diyaar uma aha inay gacan ku siiso cid wax weerarayso etoobiyana dad isdaafacayo oo la soo weeraray ayay ahaayeen marka waa la daafacayo waa gacan baa la siiyey laba quwadoo waaweyn baa jiray labadii quwadoo waaweynaa mid ayagay la safatay oo ruuskii ayagu la saftay maxaa dhacay ilaan idinku markii hore idinla socdayoo tababar idin siiyeyoo aad isku dhoweydeen waxaa dhacday ruuska markii dagaalka uu muddo socday ruuska wuxuu cilaaqaad xoog leh la yeeshay etoobiya wuxuu degay etoobiya wuu xisaabtamay ruuska etoobiya iyo soomaaliya isbarbar dhigay wuxuuna doortay etoobiya sababo badan aawadood waa mare etoobiya dad ahaan way ka badan tahay soomaaliya dal ahaanna way ka weyn tahay soomaaliya marka xigaa waxaa weeye soomaali shuuciyad ma noqonayso waa geli kari weyde wuu ogaaday etoobiyase waa gashay shuuciyaddii waa qaadatay mingisto iyo raggiisii waxay yidhaaheen way caddaysteen shuuciyan inay yihiin dabadeedna waxay goosteen mabda'iyan halkaas inay u leexdaano ka dhigtaan saaxiibba runa soomaalidana saaxiib ku meel gaaroo ahaa in markaa ay ka tagaan ayaa la qumanaatay markii aad soo baxdeen xamar aad ku soo noqoteen ciidamadiinnii markaad eegto guud ahaan imisa ciidana ayaa idinkaga dhintay askarta idinkaga dhimatay qiyaastii maxaad ku sheegi karaysaa tirooyin kala duwan baa jira 30,000 baa la sheegaa 20 baa la sheegaa 15,000 baa la sheegaa maxaad ku qiyaasi karaysaa cabdullaahi wararkaas waa maqle meelaha laga tuurtuuray oo la sheego waxba kama jiraan intaas figar ama tira aad hadda sheegtay intaba ma jiraan dagaalkii 77kii annaga iyo etoobiya na dhex maray ilaa iyo xataa markii lagu daro kii dambe oo 81kii 82kii oo galdogob iyo balanballe ka dhacayay intaa markii la isku daro wixii nooga dhintay ciidamadii nooga dhintay etoobiya dagaaladeedii 5,500 nin weeyaan oo nin uusan dheereen intaasi waa inta rasmiga ahayd idinku aad isu sheegteen laakiin tiradu intaa aad bay uga badan tahay baa la yidhaha waxba kama jiraan waxaa annaga waa noo tirsan yihiin dadkanaga beenna ka sheegi mayno ninkiisi dhintay ma qarinayo taariikh hadda lasoo dhaafay wey haddii markii dagaalka lagu jiray la qarqarin karay maanta ma joogto maanta inaan qariyaa wax faa'iido ku jiraa male 5,500 nin baa nooga dhintay maxaabiis annagiyo etoobiya aan kala haynayna annaga waxay naga hayeen
270 nin markii weliba intooda badan ay qabteen intii galdogob iyo balanballe dagaaladooda ay socdeen. Dagaalkii 77kii 17 nin bay naga hayeen dhammaan ciidan ahaan. idinna imsaad hayseen? annaga waxaan haynay ilaa 6,000 ciidan gaarayo. statistiga qoran oo la yaqaan weeye oo waxaana dhex socotay waayihii dambe oo dhan Red Crosska ayaa annagana noo keenaysay ayagana u geynaysay. dabadeedna waa annaga u gudbinay markii dambe maxaabiistoodii. intooda badan waxay ahaayeen raggii militariga rigliga ahaa ama militarigii runta ahaa oo Ethiopian Army-ga ahaa. in badan oo kaloo ama boliis ama dad military u yaal oo militariga dhex deganaa way jireen, ama xaasaskoodii ama caruurtoodii ka mid ah oo lasoo qabtay xeryihii lagu soo qabtay, laakiin inta badan military ahaayeen. jenaraal samatar, haddii aad tiri ciidamadii soomaalida ee dagaalkii 77kii bilowgii 78kii ka qayb galay waxaa nagaga dhintay 5,500, maxaad ku qiyaasi karaysaa ciidamada Ethiopia intii ka dhimatay oo dagaaladaasina ay aad iyo aad u qararaayeen una xoog weynaayeen? cabdullaahi, runtii mala awaal mooyaane xisaab saxa wixii Ethiopia uga dhintay kuma siini karo. mana jecli wax aanan hubin inaan maaragtay iska tuuro. laakiin haddana wixii annaga aan aragnay ama tirinay waa kuu sheegi karaa, laakiin runtii halkaas ma ah xaqiiqdii intaas weeye kuma dhihi karo. qoladii dhibaatada ay gaartay baa sheegi karta. annaga marka qiyaastannada goobahaas wixii aynu tiro koobnay markaan kuu soo qaado waxaan aaminsannahay taqriiban 15 ilaa 17 kun inay uga dhinteen Ethiopiaanka ayaan aaminsannahay. waxaa yidna haddaba la isweydiin karaa dhegaystayaal ciidamadii Ethiopia oo Generaal Samatar uu ku tilmaamay in markii hore loo arki jiray libaaxa Afrika, laakiin sida uu sheegay Samatar ay ku soo celiyeen heer bisadeed intee ileeg ayay markaasi ahaayeen ciidamada Soomaaliya ay lahayd markii ay dagaalka galeen. Generaal Maxamed Cali Samatar intaa isagoo ka jawaabaya waxa uu yidhi intuusan dagaalka bilaaban 50 kun buu ahaa ciidanka markaan dagaalka gelaynay. 100 kun intuu dagaalka socday baan qoray. dabadeed dagaalka markuu laga soo baxay ciidamadii in badan waan sii daynay. waxaase ilaa markii dambe qaranka uu burburay ku dhowaadkiisa waxaa aniga kolleyba aan uga tagay wasaaradda gaashaandhigga 120 kun isagoo ah ciidanka. markaad qiyaasto ee aad u fiirsato imika iyo intii aad dagaalka ku jirteenba habka dagaalka ee ciidamadii Ethiopia sidee baad u qiimayn karaysaa? ciidamada Ethiopia 2 nuuc bay u qaybsanayeen. ciidan qadiim ahaa oo muddo soo dhisnaa oo tababar dheer qaatay oo dagaalo badan soo galay oo regular army ah, iyo ciidan waayihii dambe la qoray oo olol lagu qoray oo tababar gaaban la siiyey oo aanan tayadiisa saacan u fiicneen iyo awooddiisa dagaalba. tiro badnaa laakiin aanan tayo lahayn wuu jiray. ciidan horoo maaragtay tiradiisa iyo tayadiisaba ay fiicneedna waa jiray. marka aad eegto waxyaabihii idinku aad ku fiicnaydeen ee gacanta sare aad ku lahaydeen maxaa ka mida? waxay nooga fiicneed ciidanka cirka. xagga dagaalka cireed aad bay Ethiopia noogaga fiicneed. annaga waxaan aad uga fiicneen xagga madaafiicda goobta khusuusan. ciidamadanada madaafiicda goobta waxay ahaayeen kuwa aad tababarkooda uu u fiican yahay, hogaamintooda dabeed ay aad u fiican tahay,
rag mintid oo yaqaan dagaalkanana ay hogaaminayaan. waxaan u malaynaa weerarka annaga uga fiicnin, difaacay nooga fiicnaayeen. etoobiyaanka difaaca waa xagsadaan, aad bay u xagsadaan. adoo khasba mooyaane oo ay ku baaba'aan meeshaa mooyaane kama baxaan, sahal ugama baxaan. fulayna ma aha, laakiin annaga min feerfeer marka laga bilaabo ilaa iyo harar intaa waa wadnay, waa eryeynay, waa daba joognay, waana ka saaraynay goob walba markay ay galaan. goobahaas aad bay difaacooda ugu dagaalamayeen, iyagoo lagu biyo keenaa mooyaane sahal ugama ayan baxaynin, sahal ugama yaacaynin. hase yeeshee waa maquuninay runtii, mana ayan filaynin dagaal noocaasa inaan ku qaadi karo. waa hagaag dhegaystayaal, barnaamijka maantana intaa ayaanu ku joojinaynaa. haddii ay baydmo intaynu dib u kulmayno waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.